marka heerkulka jirkiisa u jeedaan waa 37 degree centigrade laakiin xaniyaha waa meeqa waa 34 waa marka cilada halkaan ay ka imaanaysa marka shantaas qalad yani inuu qofka iska ilaaliyo waa uusan sameyn waana shan qalad oo ka taxadiri karo marka inaad fahanteen ayaa rajaynayaa shanta cilad halka ay ka timaado iyo sida looga taxadira marka xaniyaha waa xubin ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan jirkeena waxaana lagu sameeyaa lagana soo saaraa shahwada si uu bacrimiso ugxanta si halkaas ubad ugu samayso waxaa jiro shan qalad oo aan sameyno kuwaas oo gebi ahaan carqaladeeyo ama qaldo sameynta iyo soo saarka shahwada shantaba waa qaladaad aad samayso mar walba kuwaas oo waxyeello baan u geysto soo saarka shahwada ama wax u dhima tayadeeda balse wacyigelinta bulshadeena oo aad u yar inta badan kama feejigna khataraha kala duwan ee waxyeeleyn kara caafimaadka waxaan idinla wadaagi doonaa cilmi baarisyada lagu caddeeyay saameynta joogtada ah ee aadan ka warqabin oo shantaas shay u geystaan xubintan muhiimka u ah taranka bini'aadamka waa sharxi doonaa insha allahu si aad ugu taxadarto hadduu alla idmo faa'iidayso wacan la wadaag asxaabtaada si kuula faa'iidaystaan magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq soo dhawaada markale kala soco barnaamijyo caafimaad oo taxan ah talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda maalin kasta 4 galabnimo saacadda geeska Afrika waxaa barnaamijka idiin soo gudbin doono Dr. Timujira fadlan subscribe channelkeena haddii aad ku cusub tahay sidoo kale muuqaalada aan soo gelino like saar waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan soo gelino mahadsanidin sameynta shahwada tira ahaan iyo taya ahaan waxaa go'aamiyo heerkulka jirka sida hortiinaba ku qoran marka sida caadiga ah temperature-ka ama heerkulka jirka waxa waaye 37 degree centigrade oo marka halbeegaas la isticmaalayo marka saa u jeedaan waa 37 sida caadiga normalka ah xaniyahana saa u jeedaan waa 34 marka 3 ilaa 2 ayuu ka hooseeyaa heerkulka jirka oo bini'aadamka oo jirka caadiga heerkulkiisa iyo xaniyaha waxaa hooseeyo xaniya taasoo la macnaa in shahwo tayo leh aan la soo saari karin haddii yacni xaniyaha temperature-kiisa ama heerkulkiisa oo soo gaara 37 marka maadaama uu jirka la mid ahayn waa in si gaar ah looga taxadiraa sida ogtihiin yacni markii hadda kuleel oo jiro oo kale xaniyaha yacni way fidsamaan oo way kasoo durqaan jirka way kasoo durqaan maadaama temperature jirka uu ka badan yahay uma adkeensan karaa marka way kasoo durqaan oo xaniyaha way dheeraadaan markuu qabow jirana yacni xaniyaha way soo yaraadaan si jirka ay ugu soo dhawaadaan oo heerkul ay u helaan maadaama qabow fara badan oo banaanka uu ka jiro tusaale ahaan marka waa sababta keentay inuu dheeraado markuu kuleel jiro soo ugu fogaado maadaama temperature jirka yacni uu asaga ka yar yahay yacni uma adkaysan karo waa uu ka fogaadaa markuu qabow jirana heerkulka jirka u soo dhawaadaa oo waa soo aruuraa marka maadaama aan dhahnay heerkulka jirkeena waa 37 degree centigrade halbeegas marka lagu cabiro xaniyaha heerkulkiisana aan dhahnay waa 34 oo degree centigrade markii halbeegan lagu cabiro macnaha 34 iyo 37 farqi ayaa u dhaxeeya saa arkaysaan marka xaniyaha haddii heerkulkiisa laga dhigo 37 oo ziyaada waxay tahay shahwada taya ahaan iyo tira ahaan hoos ay u dhacaysaa oo caqabad ayaa ku imaanayso marka maxaa keena ama sababo in heerkulkan 34 inuu ka tago oo kor aado oo 36 37 kor oo aado macnaha oo heerkulka uu ziyaado maxaa keeni kara kow waxa waaye shaqada qofka oo dadka inta badan ka shaqeeya meelaha maqaayadaha sida hortiina ku qoran ama meel walba kulul sida warshadaha oo kale iyo wax la mid ah meelaha waxyaabaha yani kuleelka faraha badan oo ka jira yani wax walba aad u kulul meel walba qof markuu gal aad u dhididay aad u kulul saacado badan oo ku jiraayo saameyn ay ku yeelanaysa oo jirka caadiga ah temperature-kiisa 37 yahay yani oosan u dul qaadan karin xaniyaha marka temperature intaas ka duwan يعني dhib badan ayay ku marka waxa koowaad ee keeni kara ama sababi kara laba waxa waaye qofka hadii uu fariisto muddo dheer lugahan aad iskugu dhaweeyay meena lugu isku dhaweyntu waxa loo soo qaato xawaa sida hortiin ku qoran yani huur fara badan ama yani cadaadis fara badan ay xaniyaha qofka uu saarayo oo space yani hawo uu ku helo ma helaayo marka fadhiga faraha badan leh oo yani saacadaha badan qofka uu fadhinayo yani ayadana yani waxay qayb ka qaadataa
inuu ziyaado heerkulka xaniinyaha oo 34 micnaha oo ka bato taasoo keenayso yani ama sababayso in ay waxyeelayso ogna haddii yani temperature ama heerkulka aad u ziyaado waxaa dhacay oo xaniinyaha micnaha waxaa dhacay in carqalad ay ku timaado samayntii iyo soo saarkii shahwada tayadeeda iyo tira ahaan labadaba saddex dadka xirto waxyaabaha tightka oo adag yani oo aan jilcanayn micnaha oo ku dhegan oo kale oo buumooyinka aadka ugu dhegan oo kale yani oo xaniinyaha cadaadis badan saaraya jirka kula dhejinayo yani haddii qofku uu qaato iyadana waa halis oo saa ognahay xaniinyaha yani inta badan waa uu ka sigsan yahay ama wuu ka duruqsan yahay jirka marka haddii yani buuma ama wax kugu dhegan aa gashato cadaadiskaas aa soo saartay ama pressurekaas aa saartay waxaa dhacaya in yani jirkii usoo dhawaaday ama uu kusoo dhego taasoo sababaysa heerkulkiisa inuu yani oo ziyaado taasoo keenaysa mataqaanaa soo saarka tayadii iyo tiradii shahwada inay caqabad ku timaado ama yani sidii la rabay loo soo saari waayo ama haddii lasoo saaro tir ahaan iyo tay ahaanba yani ay hooseyso marka inaa fahanteen ayaa rajeynaya afar sida hortiina ku qoran waxa waaye yani qofka haddii lugihiisa oo saarto sida hortiina hadda ka muuqata laptopkiisa ama computerkiisa yani saa ogna computerka aad ayuu u kululaadaa oo xitaa yani dharkaada markaa taabato oo saacad camal oo kuu saarnaada kuleel ayaa ka dareemaysaa inta badan computerada marka heerkulkaas yani xaniinyaha saameyn baan ayuu ku yeelanayaa sida cilmi baarisyada yani hortiina ku qoran waa ujeedaan marka yani haddii aada u isticmaasho waxaa fiican inaa miis ama wax lamid ah saarato ama buug yani oo kale inaa dhabtaa saarto kadib computerka aa sii dul saarto sida sawirka hortiina ka muuqata 5 qodobka ugu dambeeya waxa waaye sa-uunada waxaan la dhaho oo saa ogtihiin sa-uunada sida hortiina ka muuqato waa qolkan yar waa qol aada u kulul oo sida hortiina ku muuqato temperaturekiisa waxaa lagu sheegaa ilaa 80 inuu gaarsiisay xaniyahan sida caadiga waxaa laga rabaa 34 marka sida cilmi baarisada hortiina ku qoran saameyn xoogan ayuu ku yeeshtaa oo sida hortiina ku qoran arkaysaan yani tirada iyo tayada yani shahwada labadaba oo yani wuxuu yareeyaa xitaa macne motility-ga socodkii shahwada ayuu yareeyaa marka dadka aad ku isticmaala jimkii waxyaabahaas ayaa aad sa-uunada u galo meel waxa waaye yani cadiinta ama xeerta lagu gubo oo qofka yani kuleel fara badan kuleelkan waa kuleel zaa-id oo yani 80 degree centigrade waaye xaniyahan yani sida adiga 34 iyo wax lamid ah ayuu yani ku shaqo galaa ama ku shaqeeyaa marka yani saameyn ayay ku yeelanaysaa qofka muddo dheer hadduu isticmaalo saameyn ayay ku yeelanaysaa oo shaqadii yani socotay saameyn ku yeelanaysaa marka waxaan bulshada ka wacyigelinaynaa ama kala dardaarmaynaa 5 shay ee aan soo sharaxnay inay ka foojignaadaan oo ay ka taxadiraan oo mid shaqada ay tahay mid koowaad aan dhahan yani meelaha aad ku kullo qofku inuu ka shaqeeyo aad iskaga ilaaliyo qofku inuu waqti dheer fadhiyo kale inuu iska ilaaliyo qofku inuu dhar aad ugu dhegan oo kale uusan xiranin qofku inuu mataqaanaa laptop oo dhabtiisa ama buuggiisa uusan saaranin waqti dheer yani saa hortiina ka muuqato kale ama buug oo ka hormariyo iska saara ama miis oo raadsado sida hadda hortiina muuqato buug sidaan oo kale ugu hormariyo kadib laptopka oo saara ama miis oo kor saaro oo ka ilaaliyo lugihiisa sidoo kale sa-uunada iyo waxyaabahan kale qofku inuusan aad u badsan oo iska ilaaliyo marka inaa fahanteen ayaa rajaynayaa wixii su-aalaha qabtaan qaybta faallada ama commentiga noogu reebo insha allahu tacaala cashirkeena intaas ay kusoo koobeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu